waxaan leeyahay firimbi wuxuu furay wadada uu furay ummadda Soomaaliyeed jiho u yeelay wuxuu u yeelay jiha siyaasadeed oo ah inuu saameeyo ummadda Soomaaliyeed dal iyo dibadba hadal haynta ama magacyada haddii talaabo lagu dhaqaaqo dadna way jeclaysanayaan talaabadaas soo dhaweynayaan dadna way diidayaan ama way laga yaabaa inay macnaha ka aragti duwan yihiin laakiin kala aragti duwanaanshaha laftooda waa ixtiraamayna waxa meesha ka maqan afliyaadadii caadi waxaas unbaa meel ka dhaca dadka ummadda Soomaaliyeed dal iyo dibadba way nala soo xiriireen way noo hambalyeeyeen in wadankii jiha loo yeelay in baarlamaanka shucuurtiisa uu muujiyey in wadankan u baahan yahay isbedel inuu aado inuu doorasho aado u baahan yahay in wada ogol u baahan yahay in dal iyo dibad inta la siiyo ummadan xaalad doorasho lagu jira laga tashan u baahan yahay arrimahaas ummadda Soomaaliyeed dal iyo dibadba waxaan moodaa inaan jibinay darbi adkaa oo in la jibiyo adkeed xilli adayna lagu jiro in darbigaas aan jibinay ummadan aan u horseednay inay jihaystaan dadka qaarkood oo iska caaytamay social media ama hadda aan u baahnayn inaan ka jawaabo ama waxaan ka dhaho ayaa jira sababtoo ah dadka qaarkood waxaa loo bixiyaa laftooda cayaanka baraha bulshada loo bixiyaa jira iska caaytama marka dadka noocaas oo kale ah jawaab ma hayno laakiin haddaad wax samaysan ama tallaabo qaado bogaadin waa helaysaa dadka hor imaadan waa helaysaa dadka naga hor imaaday ee aragtidooda sida sharafta la karaamada leh u cabirayna waan ku ixtiraamayna wixii aflayaade iyo caaya dadka sameeyayna de mas'uuliyadooda waxay tahay iyo waan dad ugu yaqaan waliba la garanayo waxaan qabaa wadankan firimbigaasi inuu jiheeyey mustaqbal fiican uu noqon doono firimbigii xurriyadda iyo Soomaaliya dimuqraadiyadda iyo Soomaaliya ku aadi lahayd doorasho xor iyo xalaal adiga firimbiga ma laga yaabaa inuu magacaaga kor u qaado aniga firimbiga dadka qaarkood inay weeraraan baa laga yaabaa laakiin dal iyo dibadba ummadda Soomaaliyeed firimbigaasi xurmo weyn buu ku leeyahay inay xurmo weyn buu ku leeyahay wuxuu ka leexiyey khatar ay ku socdeen wadankan ugu jiheeyey